wejigiisu waxa uu astaan u noqday xorriyadda hadalka China. Dr. Li ayaa la aamusiyey kadib markii uu ku dhawaaqay digniin caabuq cusub oo la yaab leh coronavirus. waxa uu dhintay xanuun uu ka digay isagoo ah daada 34 jir. dadka China ma oga waxaan dhacaya sidaa darteed waa nidaam kaasoo ogolaanaya inuu caabuqani ku faafo hareeraha. Dr. Li waxa uu ahaa dhakhtar indheed magaalada Wuhan, magaalada China wadnaheeda ku taal ee uu ka dilaacay caabuqa corona. isaga iyo xaaskiisu waxa ay rajaynayaan wiil labaad oo u dhasha. December 30keedii 2019 Li waxa uu warbixintan ku saxeexay iskuulkiisa caafimaad ee alumni, taasoo markii dambena lagu daabacay digniinta xanuunkan ku saabsan, kaasoo u ekaa xanuun daran oo neefsashada ah loona yaqaan SARS, iyadoo dadka xanuunkaasi uu haleelana lagu karantiimeeyo qaybta degdega ah. maalmo yar kadib habeenbadh hay'adaha ammaanka China ayaa Li u qaaday saldhig booliis si uu u saxeexo bayaan sheegaya in digniintiisii cudurkaas ku saabsaneed ay ahayd ku tiraan aan sal iyo raatoona lahayn, ballan qaadanaya inaanu samayn doonin ficilo kale oo sharci darro ah. kaliya markaas ayaa loo ogolaaday in uu ku soo noqdo shaqadiisa. ma ahan mid aan la isqaadsiin karin, mana aha wax sidaa u si khatar badan marka loo eego waqtiyadii xumaa ee SARS. sanadkan aynu ku jirno January 10keedii wuxuu gabadh ka daweeyey cudurka indhaha ku dhacay ee loo yaqaan glaucoma. Li waxa la ogaaday 2 isbuuc kadib in caabuqa corona loo yaqaan uu ku dhacay. ugu dambeyntiina waxa uu go'aansaday in fagaara shacabka uu uga sheekeeyo khibradiisa. wuxuu dhaleeceeyey waxqabadka dowladda China, wuxuu sii waday faafinta macluumaad ku saabsan caabuqan. waxaa loogu yeedhay geesigii habeenbarhka. 6dii bishii February ee labaad ee sanadkan aynu ku jirnana jahwareer ayaa ka dhashay dhimashadiisa. dadka isticmaala baraha bulshadu waxay dowladda ku dhaleeceeyeen inay dib u dhigtay ku dhawaaqista dhimashadiisa. markii Li geeridiisa lagu dhawaaqay, kacdoon toos ah ayaa qarxay. dadku waxa ay dhaleeceen iyo cayiba ugu soo jeediyeen dowladda Shiinaha sidii ay u dabooli lahayd baaxadda caabuqa dilaacay, waxaanay dadku dalbadeen xorriyadda hadalka oo dheeriya. wuxuu ahaa qof wanaagsan, kuwa hadhay ma dhacaan inay hadlaan. waxaanu maqalnay warka dhimashadiisa, qalbiga ayaana cuslaaday, waayo wuxuu noloshiisa siiyey dadka ayaga. aad ayaan ugu mahadnaqaynaa, waa inaan wax ka barannaa. 7dii bishii February-na dad ayaa xusu sameeyey Li, kuwaasoo ku fooriyey Siiriyo. Dr. Li waxaa lagu sharfay sidii uu kor ugu qaaday codkiisa ka dhanka ah hay'adaha gudaha China oo uu ku eedeeyey faafitaanka cudurkan.